wixii shalay ka dhacay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ahaa buuqa iyo sawaxanka lagu riday xukuumadii federaalka ahayd waxay ahayd sooyaal soo socday iyo silsilad isku soo xirnaa oo sharci darrada iyo dastuur ku tumashada iyo dimuqraadiyadda burinteeda la soo waday haddii aan ka soo bilaawno dhiibistii qalbi dhagax oo aan ku xijino weerarkii lagu soo qaaday xarunta wadajir sidii loo saaray iyo qaabkii lagu bixiyay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka mudane Jawaari sida xilka looga qaaday gudoomiyihii hore gobolka Banaadir mudane Taabid Cabdi sida gudoomiyaha shalay fowdada horseedka ka ahaa Maxamed Mursal markii uu qabtay mooshinka madaxweynaha korontada iyo biyaha looga jirtay lagana soo qixiyay xaruntiisii iyo sida shalay la yeelay ama lagula kacay ra'iisul wasaarihii intaasoo idil ayaga shirkada kula ahaa madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa yar waxaasoo dhan waxay ku tusayaan hab dhaqanka sida uu yahay dowladda federaalka meelgaarka ee uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo dhaqankaasoo asaaskiisu yahay yaa ay celin kara haddii aan sharciga ku tunto yaa ay la hadli kara haddii aan dastuurka aan dhinac maro yaa wax ii sheegi kara taas waxay abuurtay dhaqan ah in ku dhiirashada iyo ku dhaca jabinta sharciga iyo dastuurka oo lagu tuntaaho in ay tahay wado ay isku tusiyeen asaga iyo kooxdiisaba inay ku guuleysan karaan markay u hirgaleen waxa aan soo sheego dhan waxay abuureen indibaac ama impression ama waxay abuureen dareen dadka ay gelinayaan yaan hor istaagi kara dareenkaas wuxuu ku saleysan yahay argagax gelin iyo argagixiso waa midka ay kooxda al-shabaab ay ku dhaqmaan oo aanan biyo laga doorin inay dad tusiyaan inay yihiin niman laga baqayo inay yihiin niman aan sharciga u aabayeelaynin inay yihiin dad aan dastuurka ixtiraamaynin dadka Soomaaliyeed waxaa u caddaatay inaysan jirin dowlad ixtiraamaysa dastuur inaysan jirin dowlad dan ka leh dib u heshiisiin inaysan jirin dowlad dimuqraadiyad iyo sharci toona dan kale inaysan jirin ayaa u caddaatay shacabka Soomaaliyeed haddana xisbiga wadajir waxaan ka soo dignay arrimahan ayaga ah 3 sano ka hor ayaan soo wadnay oo shacabka Soomaaliyeed maalin kasta la wadaagaynay oo aan u sheegaynay in dowladani uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay tahay dowlad aan dastuur iyo sharci iyo dimuqraadiyad iyo dib u heshiisiin aan dan ka lahayn dowlad aan ixtiraamaynin qodobada qoran ee dastuurka iyo spiritka ama ruuxda dastuurka ee ah dib u heshiisiinta wadajirka midnimada dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo ku dhisan hanaan dimuqraadi ah aanan u aabayeelaynin qof kasta oo ayaga shirka la ah ama ugu alalaasa beenta ama ugu mashxarada sharci ku doominta kuwa shalay la magacaabay kuwa baarlamaanka dhaxalaasay kuwa shalay garab taagnaa waa dad aanan garanaynin inay ku qoos qaataan wixii ku dhacay madaxii xukuumadda oo mashruucooda qayb ka ahaa saas daraadeed ayuu xisbiga wadajir wuxuu ku celcelinayaa in shacabka Soomaaliyeed iyo saamilayda siyaasadeed iyo dowlad goboleedyada iyo aqalka sare sababtoo aqalkii hoose ama golaha shacabka uu dhintay inaysan ku kadsoomin ama aysan dareen ka qaadin ama aysan fahmaan xaaladda dalka meesha u socoto oo ah midii aan ka soo digaynay 3 sano oo isdaba joog ah waxa loo bixiyay xukuumadda loo saaray ra'iisul wasaaraha sida aad aragteen inqilaabka ah wixii shalay dalka dhacay waxay ahaayeen inqilaab aan dhiig ku daadan sababtoo ah in ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisii kala duwanaa nabad sugidii iyo booliskii iyo militarigii loo isticmaalo ra'iisul wasaarihii asaga oran jiray aniga ciidanka dhisay aniga reform gareeyay aniga bixiyay mishaarkooda ayaa shalay asaga naftiisii ayaa loo adeegsaday inay ka qaadaan xorriyadiisii inay u diidaan dhaqdhaqaaqiisii inay u diidaan inuu prime minister xor ah oo dalka jooga uu yahay ciidankaas waxaa loo isticmaalay dhacdooyinka aan soo sheego dhan
kuwii qalbi dhagax dhiibay ciidankay ahaayeen qaybtiisa nabad sugidda kuwii soo weeraray xarunta wadajir ciidankay ahaayeen kuwii guddoomiye jawaari kor dhigay kuna qasbay inuu istiqaaladiisa dhiibana ciidankay ahaayeen kuwii shalay ama guddoomiyihii hore gobolka xaruntiisa hareereeyana ciidankay ahaayeen kuwa shalay ra-iisul wasaaraha xorriyadda u diidana waxay ahaayeen ciidanka oo loo diida xataa inuu shir jirahaysaan oo kale oo hore uu qabto waxaan markaa rabnaa shacabka soomaaliya inaan mar kale xasuusino waxa aan ka digayna weyso dhacdooyinkoodii bannaanka ayay yaallaan way caddahay su-aasha waxay tahay yaa la sugayaa yaa laga sugayaa dalkan badbaadadiisa yaa looga fadhiyaa in oo dareenka annaga nagu jiro oo galo maxaa keenay inay wax kasta oo sharci darraa ay ku kacaan kooxda filla soomaaliya joogta iyo taliska nabad sugidda ay u siiro gasho waxyaalaha keena waxaa ka mid ah in dadkii siyaasadda ku jiray intoodii badneed ay noqotay siyaasadooda siyaasad la yidhaahdo muufaysi iyo maalin joog oo ay ku filan tahay sandareerto maalintaas ay isaga furfuraan oo danahooda ay ku gaaraan waxaa keenay dad badan maxaa iga gale mar haddii aniga dhibka haysanin inay ku dhaqmayeen oo mid kastoo ayaga ka mid ah maalintii uu lahaa aniga maxaa iga gale haddii hebel haysato haddii sharciga lagu tumanaayo maxaa iga gale aniga haddii hebel la weeraray maxaa iga gale aniga maana i haysataa ama uu qayb ka ahaa ama uusan ka ahayn inaysan cafinaynin siyaasi bannaanka jooga ayaga ka ra'yi duwan ama mucaarad ku ah inaysan cafinaynin siyaasi dowladda ka tirsan ee ayaga aan ku ra'yi ahayn inaysan cafinaynin siyaasi ayaga ka mid ah oo wax kala alalaasaya oo kala mashxaradaya rag dad cafinaya inaysan ahayn ayaa cad maxaa kaloo loo sameeyey shalay waxa dhacay waxaa loo sameeyey in lagu dilo momentumka ama waxa ka soo baxay dhuusamareeb oo dhuusamareeb 1 iyo 2 libinteeda la diido natiijada ka soo baxdayna la diido lana banado oo laga hortago dhuusamareeb 3 shirka soo socda dhuusamareebna lagu banado oo ugu yaraan dowladda galmudug loo diido martigelinta martisoorka isku keenka soomaaliyeed libintaas loo diido waxaanse ka xumahay dad matala deegaankaas inay rumaysteen welina ay ku siran yihiin riwaayaddii madaxweyne farmaajo ay ahayd xilka ra-iisul wasaaraha idinkaa insiinayaa qayb ka noqda ra-iisul wasaaraha la ridaayo ama qayb ka noqda shirka inaad joojisaan ama qayb ka noqda inaa anigu muddo korosi iyo extension helo waxaad looga xumaada runtii waxa dhan oo waxaas loo sameynayo 2 sano oo lasoo dhaafaan ka digaynay waa muddo kororsi madaxweynaha wuxuu wax kasta u bixinayaa oo saaxiibkiisii dadka ugu dhowaa oo shalay sidaa aragtay oo bahdalaada ku jirto oo xilka uga qaaday oo se qofna ugu turaynin waa inuu xilka sii joogo waddo kasta uu ku joogi karana uu kusii joogo sharci darro xoog waxa ayaan darrada ka mid ah in soomaali nidaamka xisbiyada weli mehergelin waxaa lagu fadhiyaa talada dalka waa 4.5 waxa ayaan darrada ka mid ah oon xog ku haynaa miiska lagu go-aaminayay sida loo dhaqmayo ra-iisul wasaaraha ama xukuumaddiisa ama go-aanka la gaaray shalay inaan xataa laga talagelin oo xataa aan loo baahanin oo xataa aan la waraysanin dadka uu kursiga ku matalo madaxweynayaashii hore markay qabtaan ra-iisul wasaarayaasha caado waxaa ahaan jirtay inay wacaan xildhibaanada ka soo jeeda deegaankiisa xildhibaanada isaga ugu dhow dadka odayaasha oo dhaqankiisii deegaankiisa ah in aanan xataa loo baahanin cidda uu ku matalo talada inaan loo baahanin xilka la yiraahdo afarteena shiraysaa isku filan cid kale u baahannahay oo aan daba ka dadanayno ma jirto runtii gabadfalka aan ka sheekeeyey xadgudubka siyaasiga ah xaqiraadda ama lagu samaynayo waxay ku dhacaysaa oo dhan maaha gobollada dalka oo dhan maaha waa caasimadda oo keliya waxaan ugu baaqaynaa marka madaxda dowlad goboleedyada inay ogaadaan iyo siyaasiyaamilada siyaasiyiinta ah iyo aqalka sare iyo inta damiirka leh ee nool ee bulshada rayidka qeybaheeda nool ay ku jiraan in madaxweynaha farmaajo uusan dib u heshiin rabin inuu Soomaali heshiiye rabin
inuu nabad ka shaqeeyo rabin in uusan doorasho rabin kursigana waddo kasta uu ku joogi karo inuu ku joogo inay ogaadaan oo aysan ku kadsoomin waxaan ogahay qayb badan qaar badan oo kamid ah madaxweynayaasha gobolada inuu taleefano u diro oo yiraahdo ugu taageera bixinta ra'iisul wasaaraha idinka ra'iisul wasaaraha idin siinaya ama qaarkood uu ku yiri maanta kaliya garab istaaga waxaysan ogeyn kuraasta ay ku fadhiyaan ragga shalay fadhiyay sidaas oo kale in qaarkood lagu bixiyay oo la yiri maanta uu bixi bari adaan ku dhisaya ama adaan ku taageersanahay waa inay ogaataa inta siyaasadda ka shaqeysaaho nimanka filla Soomaaliya ka taliya ay taliska nabadgelyada oo isku dhafan inay cid ay u turayaan ama cid ay u aabiyeelayaan ama cid kastana ay doonayaan maalintaas inay ku moodaan siyaasaddaas maalinlaha ah ee maalin joogana ay kula macaamilaan waxaad ogtihiin beesha caalamka inay hadda fahantay halista uu leeyahay taliska madaxweyne farmaajo iyo taliskiisa nabadgelyada waxaad ogtihiin dowladda Mareykanka inay hadda ka hadlayso inay jiraan dad qaswadayaal ah ayna caddahayn ku qoraalkooda ay ku cad yahay inta kale ay maanta soo saari doonaan ama bari waa soo dhaweynaa dareenkaas waa soo dhaweynaa aragtidaas 3 sano ku xilnayna inay qaswadayaal jiraan dalkan aan ogoleyn xasiloonidiisa iyo nabadiisa sidaas oo kale raba Soomaaliduna inay fahmaan cidda qaswadayaasha ah oo dowladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo dastuurka iyo dib u heshiisiinta iyo dad isku wadka iyo wada jirka iyo midnimada dalka diiday inay ogaadaan ayaan u baahanahay dadka Soomaaliyeed oo ay ogaadaan ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri wattaqu fitnatan la tusiibanna alladheena dhalamu minkum khassa dibka inuusan ahayn cid gooni isku dhacayni kaliya ee dulmiga ay geystaan kooxdaasi oo Soomaalidan oo asiibayo waxaan ognahay ganacsato inta loogu soo dhacay businesskeeda maramadu madaxa loo gilay ayagoo ciyaalkoodii ama guryahoodii ama reeroodii dhex jooga ama businesskooda dhex taagan nabadgelyada ay xirtay iska haysatay waxaan ognahay kuwa loo diiday ganacsigooda waxaan ognahay dad shaqaysta oo NGO-yada ama jaamacado leh in jaamacadahooda la burburiyay waxaan ognahay in siyaasiyiinta lagu xad gudbay waxaan ognahay shacabka Soomaaliyeed maanta inay wadooyinka xiran yihiin waxaan aad ugu xumahay maalin kasta in lagu celiyo doorasho shacabku ay qayb ka yihiin shacabka rabna awood in aan u celino shacabka Soomaaliya shacabku laba cashuur laga ma qaadi jirin madaxweyne farmaajo maamulkiisa ka hor hal cashuur baa laga qaadi jiray mid dawladda ah maanta waxa laga qaadaa laba cashuur oo ay ka qaadaan shabaab iyo dawladda shacabku jidadka ma xirnaa jirin islaamuhu jidka kuma umuli jirin shacabka Soomaaliyeed ma ahayn qaraxyada 700 iyo 800 iyo 1000 ku dhow in laga dilo maalinlaha madaxweyne farmaajo ka hor ma jirin shacabka Soomaaliyeed ma ahayn mid xorriyadiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa ay xanaban yihiin asaga ka hor marka shacabka loo turayo iyo shacabka maalin kasta afka lagu haysto halka uu jooga la yaabanahay iyo shacabkaas meesha uu ku nool yahay hadda uusan ahayn midka Muqdisho jooga oo dhibaatadan arkay iyo silican arkay ku nool hadda uusan ahayn shacabka la sheegay ciduu yahay ayaa la yaabanahay saas daraadeed waxaan ku baaqaynaa dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan dalka inuu badbaado u baahan yahay loo baahan yahay in la dhiso qaab la helo wada jir ah oo ay Soomaalidu marxaladda uga samata baxdo haday tahay golo ku meel gaar ah dalkan badbaadiya haday tahay shir qaran ee dalkan lagu badbaadiyo dadka Soomaaliyeed waa inay tashadaan waa inay ogaadaan waa inay la socdaan madaxweyne farmaajo doorasho ma rabo xukunka inuu nabad uga tago ma rabo waa ninka quuri waayay dastuurka qodobkiisa 103 waxa ku qoran hatta ra'iisul wasaaraha xil laga qaado iscasilo inuu asaga qofka xilka sii wadaya waa ninka raba digreeto dalka inuu ku maamulo oo ra'iisul wasaarka digreeto ku magacaabay oo wiilkii xafiiskiisa ka shaqeynay qof kale oo aaminay inta waayay xogaha joogtada xafiiska ra'iisul wasaaraha ka dhigay madaxweyne farmaajo waa kaas Soomaaliyeed waa inaa baratiin 3 sano in bareynay waa inii sheegnay waad ku sirneedeen dad kale ku sirneedeen kuwa meel ka bootay ku sirneedeen inay wax yihiin aad moodeen ma ahayn dalku wuxuu u socdaa haadaan iyo meel halis ah lama rabo hal soo inta la soo kaco oo la yiraahdo haddaan dadka badbaadinayna oo ay qeyl dhaan warma kama tuman ay dhacdo oo meel la aado wax laga bilaabo la waayo hadday tala leedahay sidaas daraadeed waxaan ugu baaqaynaa siyaasiyiinta doonaya siyaasadda inay muufaysiga iyo maalmaha kula jiraano war ilaahayna ka yaaba war taas siyaasad maaha war waa mid dalka maanta meesha dhigtay
ورامدا هذا كلسونيدا إيه دنمدا أتكو ويسين ولي بوحك الله يدك الدجان كان جوجا أو سياسة دود أي نقطة مال لا إيه أنيجا محل يوجرا أو الله أرك إنه نقدان تطلع حقره أن تلا لا يقيب جرين أو الله ورسنين دتك الدولة الجبلية ما مولده هيستان دجان دود الحكومان وحيليها بينه مالك استنويدينها ورمحا كل عددك يكونوا المجال هذا مقدشو محيتها سياسة دودة حقي أسعتها حقي قوة جهنتها وحرمنا ساملية السياسات هديتها حزبية هجانة كل الدول قيمها بالشدة وضياش دقنك الدجان كان إن نقدان ضد قيمة أو إسكفلاية أو سياسة ميسان كله أو أركتك كله أو ضد نملة إن نقدان ربنا ضد كساملين وبهنا إن يكون قرب استاجان سيد ضد كرر مقدش عليسك هي دباتة هي السلعة هي بهدلات هي حقيرات الله ود القاضي لها وحنا يكونوا لنا هاي هذانا هو ذجر وانقصنا شعب كسومالي تاجر ديس ينقصنا شعب كسوماليان اللي رجليه روح أيها نوديسا درانك أيها نسية فالعليس كودا يتاجروا كونوا لنا ويكرم هالعلينا وحنا كعصرنا تاستل مذا إن قرب استاجينا يتاجروا أسي ودان تاسع ضدك اللي رجلي كرتا تاسع ضد نمذا يكوجرتا يدرانكاس وكو إيمانه وأي عبده مصير كما دعوا فرماج إنه يهاي ماشي أودي أصحابتي سي ترى ذلك لا تمد شكي إيجا مجرو إنه مصير كيس من مجدي هاي شكي إيجا مجرو هل كي أكون ما يقدميه برلمان كي الوزراء سينو كل ما دونه شكي إيجا مجرو إنه ماشي سوق ساعات هاي ماشي أو مريسا بديس يكون ترى ذلك وحيرو شكي إيجا مجران هبيراته لكن واحد ديدنا هاي دبعتنا يألك وكتجي دونه أو ضدك الصوماليات وكتجي دونه ويمد ولولك وهيزا لكن واحد شكي إيجا جري إن أو مصير كسر سوقاي ساز دراد ده حبها هاي صومالية ده دان هاي سيدا عن شيء متجوج دولة جوالات من حزب السياسة الجامية بالشرعية وغير دقن سياسي أقل سرع مركلا كل يعني واجد أنت أكتيدا مرة أنا شيء قولها شعبك وحنوب أنا دمانت أنا قرباس خبصنا وحنوب أنا إسبدل دل كان وحوب هي إسبدل دق وحوب هاي إسبدل كاسنا كوذا شقينه وأن كانوا ضد سياسة مبدأ يدمير يدنمو يبريسبل يمبادئ كتاي وأنا هين ضد كم مفيسانية سياسة مالك تسجوكتا أو مالك استسرا ما كان أركي اللبان وزير سياسي مدعوينه هرمام الجولات أو لو إسوسر من كان ما له يقوم مودين ساسي إيالان وعود بيجتي شلل أو مدي الوقوع في قادنا أيه مركب وحرمنا شعب كسومالين إن تاجرد إنه هيان أيسي جوكتيان وحرمنا دل كان إنه كلا دقاق كجرو كلا جور كجرو دور شلة هذه بدبادين تيسا لسكا شلو أدوك هذا وسوي جدا أول نوانا جسي جدين وحيكسرنا ين دولتان وحيكسرنا ين بربعاندة يبانتا شعب كسومالي وحيكسرنا ين وحلو مرسي برا بالشدة وذا بانتا قفل بهذا وأركتي درينك وسوي جدا ضدك وسوي استاجينهن وحنا رجينا إثبات الكاس إن ضدك كسومالي كوذا قريب قاتان سيد دل كانوا نوضا دول النمذجين نوبت بعده دستور كان الديمقراطية والسريسة إن هالكاس عن كل جنا رجينا وعن كسو كسر متبعينه كواحد ير ماركتي قرص كتوركا دخن كأرجع حسدا له الدستور الديمقراطي الديمقراطيين يضد يدرن والدنيا من الهين إن إسكا فوقينه وعن إسكا قبلنا وعن قعنت قبلنا ونسر أخاك ظالما أو مظلوما يهد الدين لك قبل كرنا وإدتك وحجرت كذا هاي أما دتك أيها وحلاها وحلق جرناي أما لا شيء قيسناي سيقول لك هو أركتين هو رجال ملها إن إسكاب بدلنا أو إسكاب قبلنا أو وضع استاجنا أو إسقاف دم بكون كتسومين أو إسقاف دم بس سيرين أو إسقاف دم بينو شيئين أيها ربنا وعن كلام كسر جبينيا إن أنا اللي جبقيني أرجع حسين مدود دت كانوا شبابي كبقي وين كو يكون كدلي كبقي وين كو أرجحيه كبقي وين ويلا الدور أو كو أديجنا أن يرو ماركت عيدن كصوماليات كميدا إدك بقي سامله إذا أرجع حق جيني كرانا ملها إذا جوجيني سنة ملها يهنا كل يوم إن أنت لقى عبسه أي أبوران دلال عبسي أو أيدت كان كبقان يسا كل يوم وأنا مركل كل عليا كوا على العصر يوم أنتو بريء هذا واحد يسوع وما سنتي